xiisadda deegaanada Somaliland iyo Puntland iyo ciidamada badan ee Somaliland ee geesay dhanka xuduudda. wararka ka imaanaya 24 saac ee la soo dhaafay deegaanka Tuqarraq ee gobolka Sool ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Somaliland ay halkaas dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka bilaabeen deegaankaasi tan iyo markii uu soo ifbaxay khilaafkii u dhaxeeyay madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnaa magaalada Garowe iyo deegaanada kale ee Puntland. dhaqdhaqaaqaasi ciidan oo tan iyo maalmihii ugu dambeeyay socda ayaa waxa ciidamo ka tirsan Somaliland la sheegay oo gaadiidka wata in ay aadeen dhanka iyo deegaanada ku xeeran Tuqarraq oo ka tirsan gobolka Sool oo muddooyinkii ugu dambeeyay ahayd xaaladiisa mid degan. gaadiidka dagaal iyo ciidamada badan ayaa u jeesta dhanka deegaanada ku dhow gobolkaasi gaar ahaan deegaanka Tuqarraq waxaana si ay ugu sii gudbaan ay qorsheynayaan in awood ciidan ay dul dhigaan jiidaha hore ee deegaanka Tuqarraq halkaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo ay ka socdeen. dadka ku sugan deegaanka Tuqarraq oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegaya in xaaladda ay sii xumaanayso isla markaana badi magaalada laga barakacay si shacabkaana loogu dul dagaalamin. duleedka Tuqarraq ayaa iyaguna waxa ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa Puntland kuwaas oo dagaalo kala duwan la galay ciidamada Somaliland ee halkaasi ku wada dagaalamay marar badan. xiisadda deegaanka Tuqarraq ayaa sii xoogaysatay maalmihii ugu dambeeyay waxaana soo baxaya warar sheegaya in Somaliland ay qorsheynayso inay ka faa'iideysato xiisadda khilaafeed ee ka taagan deegaanada Puntland maadaama ciidamo badan oo ku sugnaa jiidda dagaalka gaar ahaan Tuqarraq ay ka baxeen deegaankaasi isla markaana ay la safteen hogaamiyaasha kala duwan ee Puntland. inkastoo wararka qaar ay soo baxay ay sheegayaan inay la safteen madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cismaan Cilmi Karaash oo xiisad ay kala dhaxayso madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni. macluumaadadaasi waxyaabaha ka soo kordha wararkeena kale